Asalaamu calaykum, soo dhawaada asxaabteyda. Maanta waxaan ii wadaa makeup-kan. Haddaad igu cusub tahay, soo dhawaaw, subscribe saar, wixii ra'yigaaga ee commentiga iigu soo qora. Aad ayaa u mahadsantihiin daawasho wacan. Okay, asxaabta waxaan ka bilaabayaa primer ayaan wejiga marsanayaa. Primerkaan isticmaalaya waxaa waaye Katis Cosmetics, xaggaas ayuu kasoo baxayaa magaca. waxaa waaye highlightna waa loo isticmaali karaa, primer ahaana waa loo isticmaali karaa, foundationka ka hoosna waa la marsan karaa. waa kaasaa magaciisa. Markaas asxaabta sidaa aragtaan mar walba gacanta ayaan ku marinayaa, mar walbana gacmihiina dhaqa wejiga markaad wax marsanaysaan. wejigaagana isagoo nadiif wax marso. aniga gacanteeda waa nadiif, gacanteeda ayaana ku isticmaalayaa. haddana waxaa isticmaalayaa Milani foundationkiisa. sponjigaas kuma isticmaalay beauty blenderka, laakiin waxaa ku isticmaalayaa maxaa la dhahaye brushkaas waxaan kasoo iibsaday H&M-ka ayaan kasoo iibsaday. waa brush aan caadi ahayn, waa brushka waxaana loo isticmaali karaa powderka iyo foundationka. sidaad aragtaan xagga dambe wuxuu ka leeyahay brush yar, inaba caadi maahan. wejiga dhan ayaan gaarsiinayaa. asxaabta haddaa ka hesheen sunniyahayga sidaan u sameynayo, videogan ayuu ka horeeyay, waan soo geliyay. marka videoyada dib ugu noqda daawada. si fiican ayaan wejiga u wada gaarsiinayaa saa aragtaan. qoortana waa kaasa, qoorta waa muhiim in la mariyo, haddii kale waa kala cadcadaanaysa. waa inay isku ekaadaan. hadda ayaan soo qaatay beauty blenderka, si xoog uguma marinayo, wax yar waan iskula simayaa oo keliyaata. haddana waxaan isticmaalayaa concealer, Revolution concealerkiisa ayaan isticmaalayaa. basa indhaha hoostiisa ayaan marinayaa, xaggaas kor, xagga hoose, sanka, labadaas dhinacna waan marsadaa. waa kaasaa asxaabta si fiican. waxaan isticmaalayaa beauty blenderkaas yar, kaas yar ayaan isticmaalayaa sababtoo meelo kale igama gaagaarayo. intaan rabo bis ayuu marinayaa. sidaad aragtaan si fiican ayaan u wada simayaa, asaga dhan waan isku ekeysiinayaa dhinacyadaas oo dhan. marka waad arkaysaan. saa aragtaan concealertii dhan waa isla soo simay, ayada dhan waa isku soo ekeysiiyey dhinacyada dhan. haddana waxaa isticmaalayaa banana powder. saad aragtaan beauty blender yar ayaan ku isticmaalayaa. indhaha hoostiisa meel kasta oon concealertii mariyay ayaan marinayaa. meeshaasna waa meesha geesaha qosolka, macnaha markaad qosleysid meeshaas way isku soo laalaamaysaa, saas darteed ayaan u marinayaa. markaad marisid taas ma soo duuduumayso. marka asxaabta saas markaan u mariyo meel kasta oon concealertii mariyay, waxaan isticmaalayaa powderkaas wax yar wuu iga yara madow yahay, saas darteed ayaan u isticmaalayaa cadcadkaas uu uga bixiyo. powderka ayaan kaga qaadayaa wejiga dhan. asxaabta haddaa ka hesheen sidaanaan codka u saarayo, ila soo socodsiiya insha Allah. marka gabdho badanaa waxay isoo dhaheen heesaha naga daay yaa codkaaga si aan u maqalno. marka codka haddaan saan u saarayo markasta iisoo sheeg aad ka hesheen. haddana sidaa aragtaan spray ayaan ku buufsanayaa NYX concealertii ayaan mar kale soo qaatay, indhaha korkiisa ayaan marinayaa si uu iigu qabto eyeshadowga. asxaabta markaan mariyo concealertii indhaha korkiisa, waxaan soo qaadanayaa powderkii ayaan wax yar indhaha korkiisa marinayaa, qoyaanka yar suu uga bao oo concealerka banana powder ayaan haddana soo qaatay, wax yar indhaha korkiisa sidoo kale ayaan marinayaa.
brush yar ayaan usoo qaatay. Kadibna kalarkaas oo oransiga ayaan isticmaalayaa marka hore. wax yar ayaan marmarinayaa, zaaid ma uga rabo kalarka oransiga, wax yar oo khafiif ah suu iigu soo muuqda hadhow eyeshadow-ga. kadibna kalarkaas oo pinkiga ayaan isticmaalayaa xagga hoose, kor dhan ma gaarsiinayay, xagga hoose isha bis ayaan marinayaa. asaga ayaa gaari doona hadhow si khafiif ah, asagaa u socon doono oo gaari doono. markaan saas u mariyay kalarkii pinkiga, waxaan soo qaatay brush kale xagga kor wax yar suu khafiif uga noqdo ayaan saas brushka ku yara blend gareynayaa. kalarkaas oo jaalaha ayaan haddana xagga kor marinayaa suu u noqdo kalar oo khafiif ah, guduud iyo jaalo yar isku dhex jiro. macnaha pinkiga iyo jaalaha markii la isku yara daro kalar oo qurux badan ayaa kasoo baxayo. haddana kalarkaas ayaan marinayaa, kalarkaas magaciisa wuu iga dhumay. marka kor ma marinayo, isha xagga inta laabadka ka hooseysa dhan ayaan marinayaa saad aragtaan. markaan saas u mariyo waxaa haddana soo qaadanayaa brush yar, xaggaas dhexda intii aan mariyay kalarkii hadda ayaan isku dardarayaa iyo kalarkii pinkiga ahay. haddana oransigii ayaan dib ugu noqday xagga kore si yaroo khafiif ah suu usoo baxo. muhiim maaha brushyo badan inaad saan u isticmaashid, laakiin intaad haysatid un ku celceli. haddana sida aragtaan concealer ayaan soo qaatay iyo brush, isha ayaan kala jarayaa saa aragtaan. si tartiib ah markaad xaggaa sameynaysid, si tartiib ah inaad u sameysid si uun kaaga xumaan meelaha kale. okay, markaan tan saan u sameeyay, tii kale ayaan haddana saan u sameeyay. saad aragtaan inay isku eg yihiin ayaan fiirinayaa oo kaasa weli waan sii hubinayaa inay isku eg yihiin. waa inay isku ekaadaan, markay isku ka eg yihiin aad ayuu u qurux badan yahay. markaan saas u sameeyo waxaan isticmaalayaa kalarkaas fiyoolaha ee xagga dambe NYX kalaradiisa ayaan isticmaalayaa saa aragtaan. marka xagga dambe ayaan tartiib, brushkan uu weyn yahay, mid yar ayaan soo qaatay saad aragtaan. markaasaa brush yar ayaan soo qaatay, xaggaas kor uma wadaayo, isha meeshay kasoo laabanayso bis ayaan marinayaa. marka muhiim maaha inaad brushyo badan aad isticmaashaan, brushkaad haysatid ilaa 2 xabo hadaad haysatid ilaa 3 xabo, kuwaas bis ayaad ku isticmaali kartaa. wax yar waad ka tirtireysaa bis kalarka. haddana waxaan isticmaalayaa kalarkaas oo oranjaha ah, xaggaas ayaan marinayaa saa aragtaan. wow, kalar qurux badan, kalarkan caadi ma ahan. marka isha kalena saas ayaan u marinayaa. inaba caadi ma, walaa kalar qurux badan ayuu kusoo baxay. haddana waxaan isticmaalayaa kalarkii oo yellowga ahay, kalarka oo huruudda ah, jaalo ama jaalo saa u taqaantiinba. kalarkaas ayaan xaggaas marinayaa isha. wow, quruxa kusoo baxay soo maahan, caadi maahan. marka aan saas u sameeyo
waxaan soo qaadanayaa brush yar waan ku riixriixayaa kalarka suu iskugu darsamo. Kalarkaas oo violaha ah ayaan xagga kore si yar oo khafiif u marinayaa. Saad aragtaan kama badinayo. Markaan saas u mariyo kaas isla kalarkii oon mariyay xagga dambe violihii ayaan haddana xagga hoose marinayaa. Labada ilba waan marinayaa. Saad aragtaan markaan saas u mariyo waxaan soo qaadanayaa qalinkaas NYX oo cadka ah indhaha dhexdiisa ayaan marinayaa soo indhaha ay u soo muuqdaan indho waaweyn ay noqdaan. Wakaasa soo isku bedelay kalarkaas oo waxaan marinayaa jaalaha xagga hoose waan ku blend gareynayaa. Marka waxaan isticmaalayaa highlight sa aragtaan sunniyaha korkiisa ayaan u isticmaalayaa si uu qurux ku soo baxo. Dhac sunniyaha kale haddana wakaasa suu dhalaalayo. Brush yar ayaan soo qaadanayaa wax yar jag ayaan ku yara siinayaa isku yara dardarayaa. Haddana waxaan marinayaa isha meeshaas ayaan marinayaa suu u soo baxo. Sidoo kale isha kalena ayaan marinayaa. Wakaasa haddana waxaan isticmaalayaa eyeliner NYX eyelinerka sida loo sameeyo hal maalin ayaan nii soo gelinayaa isaga kaligiis. Markaas saas eyelinerka u marsaday kadibna waxaan xiranayaa baalasha indhaha. Markaan saas u xirto kadib waxaan marsanayaa mascara. Asxaabta ii soo sheega ma sidaan ayaan codka u soo saaraa misena anoo caadi u hadlaayo ayaan soo geliyaa. Gabdho badan ay soo dhaheen heesaha naga dhaaf marka heesaha waan dhaafi doonaa insha Allah. Haddana waa kaasa kontoorka ayaan sameynayaa. Marka asxaabta ii soo sheega sidii fiican soo heesaha dad baa ay soo dhaheen heesaha naga daay adoo caadi codkaaga inaan si fiican u maqalno ayaan rabnaa. Insha Allah heesaha waan ka daynayaa. Codkayga anoo caadi u hadlaayo ma soo geliyaa mise codka ayaan sidaan u soo saaraa. Labadaas inaan kala ogaado ayaan rabaa. Kalarkaas guduudka ayaan marsanayaa hadda. Wax yariis dhac xagga korna waan marinayaa. Highlightkii ayaan soo qaatay. Soo dhalaalayo wax kale waa walaa. Caadi ma ahan. Markaasa wax yar sunniyaha korkeedana waan marinayaa. Sonka korkiisa dhalaalka adduunka faruuryaha korkiisa wakaasa waxaan marsanayaa rosetadii qalinka oo waxaan isticmaalayaa NYX sa aragtaan caadi ma ahan waaban dhameeyay hadda midaan dhameeyay mid kalena hadda wakaasa wuu sii socdaa. Kalarkaas aad u jeclahay aad u isticmaalaa. Kaligiis xataa waa marsan kartaa wax kale adan ku darin. Markaan saas u mariyay qalinka waxaan soo qaatay rosetadaas kalarkaas ayaan dhaxda wax yar ka marinayaa. Inaba caadi ma qurux soo kuma soo bixin. Gacanta ayaan saas ku dhaxayaa isku dhax galo labada kalar. Wakaasa waxaan ku buursanayaa wajiga. Wakaasa makeup-kii dhanba saas ku soo baxay. Asxaabta ugu dambeyn makeup-kiisaan ku soo baxay. Haddaa rabtaan video noocaan inaan soo badiyo commentiga iigu soo qora. Haddaa ka hesheen videogan like saar.
haddaad rabtid inaad mar walba ila socotid subscribe saar gambaleelkana riixo qofka ugu horeeya uu imaanaya noqonaysaa videogan soo geliyo aad u mahadsantihiin snapchat-ka iyo igu soo darsada instagram-ka wixii ra'yi ah commentiga ku reeba bye bye